halkan nagala soo qayb galay waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh allah mahad leh oo noo suurtageliyey maanta inaan halkan isugu imaanno inaan munaasabadan aan ku soo bandhigno qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka oo ah qorsho 5 sano ah oo ay soo diyaarisay soona gudbisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha kaas oo ay soo ansixiyeen golaha wasiirada ee bishii Sebtembar sanadkan 5 sano ee soo socota hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa laga maarmaan ah inaan u bawac dhigno dhibaatooyin soo noqday ee dhaqaalaheena iyo wax soo saarkeena dhulka dhigay oo la dhaawacay sida fatahaadaha abaaraha annagoo dhaqan gelinayna qoraalada laga soo diyaariyay wax ka qabadka arrimahaas oo idil mudan in qorshahan si gaar ah loogu xusay 4 qaybood oo bulshadeena ka mid ah loona baahan yahay in mudnaan gaar ah la siiyo kuwaas oo kala ah dadka reer guuraaga ah oo inta badan markii abaare yimaadaan iyagu ay noqdaan kuwa u dhibaatooda inay noqdaan dhalinyarada aan u baahannahay inaan shaqo abuur u sameeyno marka aan kobcinno dhaqaalaha aan kobcinno aan u sameeyno shaqo abuur dhalinyarada haweenka oo laf dhabarka ee bulshadeena ah haday tahay dhaqaalaha iyo haday tahay familkaba iyaga naftooda aan kor u qaadno dumarkeena iyo dadka baahiyaha gaarka qaba oo aan u baahannahay inaan caawino oo aan gacan siino haddaba dhammaan hay'adaha dawliga ah oo ay ugu horeeyaan wasaaradaha wakaaladaha agahada joogane mutuku aamisayo urkooda ku furane isinka adkeeyaane agahada joogane kuwaasoo aanu wada shaqayn jirta leenahay